horta nimayo soo dhawaada aniga laba geeri oo kala daran midna waa dhintay midna inuu noolaanayo u malayn maayo waa walaalkay gaashaanla dhexe cabdiraxmaan sheekh isaxaaq in adeerkii weeye ninkii abwaankaa ku dhintana awoogay u ahaa labaduba qaraabo aniga ii dhow oo labaduba midna ilmaadeer la yahay midna uu aabbahay iyo asagu aabbahay abtigiis run ah ay ahaayeen labadaas geeri oo taabatay waxay ka dhacday xerada booliska ee maaragtay maalin dhaweed qaraxii lala eegtay ee xalane ay ahayd maqaaxi ku hortaallay uu maaragtay dadkii ku dhinto ay ka midna si xun ugu dhaawacmay midna maaragtay ku dhintay kale ay ka mid ahaayeen abwaankii sugulle ahaa sugaal cabdulle iyo cabdiraxmaan sheekh isaxaaq oo labaduba midna gaashaan la dhexa yahay tababare booliska ciidanka dadka gaardiska bare ciidanka ama soo saaray ciidamada Soomaaliyeed oo booliska oo ahaa ninka saas u silicsan waxaan ka codsanayaa maanta aniga xil guntada aniga igu kaalmeynaysa Facebookan dawlad ugu kaalmeyn mayso qof kale ugu kaalmeyn mayso adigoo walaalnimo ii muujinayo garab taagan oo waxaan dareemaya maanta ila dareemaya Facebookan waxaan rabaa inaan dawladda gaarsiiyo oo aan gaarsiiyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ila qaad inana gaarsiiyo oo codsi waaye ninkaas arkaysiin horta kii dhinta wuuba dhinto waa la duugay oo aan sugaal cabdulla waa dhinta Allah u naxariisto awoogi ninkaas arkaysiin oo silicsan oo amiir ka lahayn oo koomada ku jira waa nin tababare booliska ciidanka Soomaaliyeed waa gaashaan la dhexe waan raggii soo saari jiray nin walba oo sarkaal ama xidig loo xiro ama dabla noqda ninkii soo saari jiray xerada booliska ku tababari jiray waa cabdiraxmaan sheekh isaxaaq dawladdu kamay sadaba imaan meeshii qaraxu ku haleelay dadkiisii iyo qaraabadiisii isbitaal lagu soo tuuray kamay sadaba imaan dawladdu madaxweynuhu inuu iska warqabinaa dhici karta taliyaha booliska asad diyaar inuu iska warqabinaa dhici karta kuwa gobolka banaadir umaysa jeexin kama daba imaan dawladda Soomaaliya waa la labistaa darajada la xirtaa haddii adigu ku goosatana isbitaalka adiga hooyada iyo ehelkaaga isla aaday hadayba hooyada ku nooshahay ama in adeerka ama walaalka isla aaday ilaahuma $100,000 kugu baxdo ilaahuma $200,000 kugu baxdo ilaahuma wadanka wax lagaaga qaban waayo dawladda Soomaaliya horta waa taas nin gaashaan la dhaxa ah oo tababare booliska oo ciidanka Soomaaliya sarkaal walbo darajo loo xiray soo saari jiray inuu maanta kooma ku jiro oo neefta uu ka qaadanayo oxygen laga siinayo sanka oo samiir lahayn oo miir daboolmay dawladuna ay ka warqabin aan very sorry aadaan ugu xumahay way taabanaysaa aad iyo aad ii gubaysaa waxaan rabaa marka inaan ka codsado madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya hadduu ka warqabo taliyaha booliska ciidanka Soomaaliya asad diyaar hadduu ka warqabo fiidiyogan igu share gareeya oo igu geeya hadda wadeen ninkan ciidanka Soomaaliya tababari jiray cabdiraxmaan sheekh isaxaaq oo gaashaan la dhaxa ah inay ka warqabi waayaan inay maaragtay la soo raadin waayo inuu maanta saas u silco inaan dad shacaba oo ka dhashay waxayse u qaban karin lagu fiirsado magac xumo dawladda Soomaaliyeed iyo kalsooni darro ciidanka Soomaaliyeed ku dhacda mar walba weeye oo taagan oo aan la xallin karin oo nin walba Soomaaliyeed oo askari walba Soomaaliyeed oo qori qaada uu ogyahay doo xabad ku dhacda maanta inaan qof u dadaalay jirin kuwii aafaha ku soo dhaawacmay kuwii dalka ku dhaawacmay kuwii qaraxyada ku dhaawacmay kuwii meel kasta ku dhaawacmay nin walba asaga uu la dhiban yahay oo xabadda isagu jeebkiisa lacagta inta qaraabadiisa soo wacday uu yiraahdo xabada meel xun iga jirta hal iga saaro waan ka xumay waa dhaqan xun dhaqankaas xun aadaan uga xumahay waxaan idin tusi rabaa oo aan rabaa inaan idin tusoo kale ninkaas sawirkiisa u jeedaan oo dadka guryaha ku garaacaya waa agaasimaha dadka nool iyo meydka waxaa ku dhacay agaasimaha dadka nool iyo meydka qofka meydka lama duugi kara haddaan la soo ogeysin lacagna laga siin muqdishoy ka bilaabatay waxay tahana maaqaan madaalana magacaabay niman yahow qof walbo qabrigaaga diyaarso yoomal qiyaama lagu jiraa wallaahi baan ku dhaartay inaysan weji ahayn tana dawladnimo iyo sheekadaan aysa ahayn dad islaam ah oo meydkii lacag ka qaadanaya ma ahan dawladnimo dastuurka Soomaaliya meel uga yaalana kuma jiro qofka dhintay in lacag laga qaado qabrigiisa iyo asaga dastuurka ku meel gaarka meel uga jirta ma aqaan anigu dastuurka waa akhriyay inta ugu badan laakiin meyd cashuur laga qaadayo ma arag anigu
takrifalka dadka shacabka lagu takrifalayo wiilasha aan sharciga aqoon oo loo dhiibay xilalka ha ka fiirsadeen oo kaamiradaha iska duubaya oo falaq leh dowladda ha ka fiirsata ayadee magaceeda halaynaysaa kaas halkaasaan uga gudbaya waxaan kaloo rabaa gurmadka aan dirsaday maantay oo ummadda soomaaliyeed u dirsaday hadday dowladdu wax ka qaban weydo hal meelaa ii bannaan meesha ii bannaanna waan aqaanaa cabdiraxmaan sheekh isaxaaq wuxuu ka dhashay cidda ree ayaanle la yidhaahdo cayr habargidir cayr ree ayaanle waa nin ilmaadeera waa ilmaadeeraanana xildhibaankiisuna waa ilyaas oo baarlamaanka federaalka soomaaliya ku jiro mahad salaad bedele haddii gurmadkan iyo qayladhaantan ilyaasna uu kusoo bixi waayo kursigii uu ku matalayana uu maaragtay dowladda uu maaragtay ugu canaanan waayo ama wax u dhihi waayo ninkan waxaa loo qabto gaashaanla dhaxa ah hadduu ilyaas kusoo bixi waayo waxaa imaanaysa aniga xil guntada inaan u duubto oo ragga siyaasiyiinta saaxiibada ee la hadlo oo ninkii wax iiga qaban kara aan idhaahda inaadeer uu ii kaalmeeya imaanaysa ilaahay idankiisa haddii ilaahay yidhaahdo waana u istaagayaa waana u gurmanayaa ragga siyaasiyiinta saaxiibada aan la ahana waxaan ka codsanayaa haddii ilyaas uu waxba kasoo qaban waayo oo raggii siyaasadda iyo kursigii uu asagu wax ka lahaa ku fadhin jiray ama u tarjami jiray ama haysan jiray ay wax u qaban waayaan dowladdana ay waxba uga soo qaban waayaan waxaan codsanayaa ninkaan la soo hadlo oo siyaasiya taytalku rabo ha yeesho inuu i dhegaysto oo maaragtay si sharaf leh maaragtay ninkaas igu kaalmeeyo hadday daba tahay iyo hadday dalka tahaba aad iyo aad ay ii taabatay geerida ninkan la yidhaahdo abwaan sugaal cabdulle iyo ninkan dhaawaca halistaha walaalkaya cabdiraxmaan sheekh isaxaaq gaashaanla dhaxa ah oo tababaro booliis ahaa iskuulka booliisiya ka soo saari jiray maaragtay ciidan kasta oo booliis oo la tababarayo saraakiisha ka soo saarta oo ka mid ahaa aadaan idin salaamaya